madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta waxa uu xilkii uu ka qaaday taliyaha ciidamada militariga Somaliland Nuux Taani isagoo u magacaabay sareeye guuto Nimcaan Gaxnuug oo hayb ahaan ka soo jeeda beesha Isaaq qaasatan Arab Subeer. Dhinaca kale taliyaha ciidamada booliiska ayaa isagana waxaa loo magacaabay sareeye guuto Cabdi Dheere oo isna hayb ahaan ka soo jeeda beesha Isaaq Habar Awal Ciise Muuse. Isbeddelka uu ku sameeyay madaxweynaha Somaliland ayaa kii ugu horeeyay ee ciidamada iyo saraakiisha ciidamada Somaliland uu ku sameeyay tan iyo markii uu yimid xilka madaxweynaha, waana meelihii ugu horeeyay ee la filayay inuu isbeddelka uu ka sameeyo maadaama saraakiisha uu isbeddelka uu ku sameeyay ay dhibaatooyin ba'an ay u geysteen qaybo badan oo ka mid ah bulshada reer Somaliland, qaasatan dagaalkii magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyo sidoo kale inay cabrin xoogan ay ku hayeen dadka kale ee reer Somaliland. Intaba Nuux Taani ayaa loo magacaabay jaga inuu noqdo la taliyaha dhinaca ciidamada ee madaxweynaha Somaliland, halka dabagale oo isagana ahaa taliyaha ciidanka booliiska isagana loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha dhinaca ciidamada booliiska ee madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro. Afhayeenka madaxweynaha Somaliland ayaa ka hadlay wareegtada uu soo saaray madaxweynaha Somaliland. ilaahay baa mahad leh. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bishii koowaad 2025 wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo nuxurkeedu yahay magacaabis. wareegtada madaxweynuhu waxay u dhignayd sida soo socota: markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland, markii aan tixgeliyey muhiimadda ay ciidamada kala duwan ee qaranku u leeyihiin madax bannaanida qarankeena, difaaca, ilaalinta iyo sugidda nabadgelyada gudaha, badbaadinta iyo ilaalinta nafta iyo hantida bulshada Somaliland, dhowridda xorriyaadka aasaasiga ah iyo fulinta ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda jamhuuriyadda Somaliland, markii aan ku qancay aqoontooda, kartidooda, nafhuridooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, isla markaana ay hanan karaan waajibaadka iyo mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalka soo socda. markii aan sameeyey la tashi, waxaan go'aamiyey laga bilaabo taariikhda maanta 1 in sareeye guuto Nimcaan Yuusuf Cismaan Gaxnuug uu ahaado taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland. waxaa xusid mudan madaxweynuhu taliye Nimcaan wuxuu u dallacsiiyey darajada sareeye guute. 2 in sareeye guute Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Allaale oo loo yaqaan Cabdi Dheere uu ahaado taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda Somaliland. 3 in sareeye gaas Nuux Taani uu ahaado la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Somaliland. 4 in sareeye gaas Maxamed Aadan Saqadhi uu ahaado la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha ciidamada booliska jamhuuriyadda Somaliland. allah mahad leh. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland.